السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن هندرجي وعيانت تسويسين channel كذا ونسان و هندرجي official ما أنت نوحيني ولا سيدا ديجا براتيمبا قصة كلتو حنون بدن inkastoo qisooyinka xanuunka kaliya aana la ii soo direynin oo la ii soo diri doono qisooyinka ayadana farxadda leh waxay leedahay gabadhan assalaamu calaykum walaalhanad alxamdulilah hadda waan fiicanahay aduu sidee tahay maasha allah baa ku fiicanahay wacalaykum assalaam waxay leedahay walaashayda qaaliga aabahay wuxuu dhintay 2008 allah u naxariisto ayaan leenahay sidoo kaleeto waxay leedahay hooyana waxay dhimatay 2014 anigana waxaan la kulmay rafaad badan laakiin waxaa jirto caruur aniga la dhalatay caruurtaasoo kala ah gabadh iyo wiil waxay leedahay aniga hooyo aabaynta buu ahaa inkastoo duruufta iyo aad igu adkeen galab anigoo shaqadii aan anigu hayay markaas waxay leedahay shaqada aan hayay waxay ahayd sambuusi gado anigoo shaqadii kasoo baxay baa waxaa iga hor yimid wiil waxay ugu dhahan kusii dhaweeya laakiin waa ka cudur daartay wuxuuna igu yiri aan kusii dhaweeyo xumaanku ma geysan doono waana ballan maadaama ballantu iga qaaday waxay leedahay wiilkii waan iska aaminay maadaama wiil Soomaaliyeed oo ballan iga qaaday uu yahay waan aaminayo waxay leedahay waan raacay alxamdulilah muddo intaas sii soconay waan isfahanay waxaana watay telefoon sida Soomaalida ay u taqaano niicle ama tooshle lambarkii iga qortay habeenkiina way soo wacay meeshaasna waxaa ka bilowmay leedahay xiriir aanan in muddo ah sii soconin oo waxa yeelanay xiriirkii kadibna wuxuu ii soo bandhigtay guur asigoo ay leh aniga hooyada iyo aabahay waxay dhaleen hal wiil oo aniga ah wax kaleeto caruurana ma dhalin waxaan rabaa inaan gurigaas gabar ka noqoto anigana waxaan u sheegay inay anigana duruuf haysato taasoo ah laba caruur ah oo ila dhalatay alxamdulilah wiilkii aniga sidii isku guursanay sanadkii koobaad waxaan u yeeshay uur waxaan u dhalay wiil iyo gabar mataana ah maasha allah ilaahay awlaadaada ha ku barakeeya leenahay walaashayda qaaliga waxay leedahay markay wiilkii markaa isbaranay kadib markii aan isguursanay kadib oo caruurtaan u dhalay hooyadiisa waxay igu noqotay laf dhuun gashay waana sababta ay dadka u necab yihiin sodohda laakiin anigu wallaahi bilaahi maadaama wiilkii sharuudaha uu ii sheegtay rafaadkii dhibku haysto uu ii sheegay ay kamid ahayd in hooyadiisa abiis guriga ay gabar ka noqoto in badan waan iska aamusay laakiin maamadii waxay ka dhammaan weysay labada caruur ah oo aan ila dhalatay 24 saac waxay leedahay waxaan soo guursanay gabarta oo kaliya ma ahane wiilkaygii oo soo ma guursanin reerdan wiilkii uu iska dhigatira hooyadiis asoo hadalkii u jeedo xumaantan u jeedo hadda ka hor waxaa jirtay leedahay mar labada mataana kadib uur inaan yeeshay maamadana si qasaba ay howl adag igu dirtay waan u sheegay inaan uur leeyahay waxay ugu tiri adiga lagu dhahaa howshii ii dirtay aan qabtay maadaama aniga shalay guriga aan u imaaday in arintu ay waalid ay qusayso oo waalidkana laga fikirayo waxay salaada nasiib xumo waxa ay ka yimid dhiig ilmihiina meeshaas ay ku halaabeen xaafadda markii gurigii maamadii iyo ninkani ay qabay iyo aabihii ay dib iskugu soo laabteen bay hadal furfurtay kadibna waxay tiri gabadhan ugu talagal ay caruurta iskaga soo tuurtay ninkayga waan u sheegay waxaan ku yiri xalkaasaa jiro anigana ilmaha iskama soo ridin laakiin hooyada waxay ugu qasbaysaa wax aanan aniga awoodi karin oo ilmaha igaga soo halaabayaan waxaa jira markay wiilkii gabadha aniga la dhashay wiilka ayaa weyn gabadhana way ka sii yartahay wiilka markastaba uu arkaa sida maamada ila dhaqanto wuxuuna yiraahdaa meeshan waa iskaga tagaynaa aniga walaashay laakiin aniga waxa ku qanciyaa inuu waxbarashadiisa iska sii wato noloshaana nolol ka qurux badan ay u dhiman tahay waxay leedahay intaas kadib habeen waxaa jirtay ay maamada 3 saac habeenimo
malaha 3 saac inuu waxa waaye waqtiga Soomaaliya waa laga jiifto waqtigaas ay albaabkii soo gargaraacday waxay tiri ma jiifatay wiilkii ayaa ku dhaw hooyo maya ma wax dhibaha jiro maya inay idila sheekaystaan rabay wayna soo gasho gudaha sariirtii ayay dhinac uga fadhiisatay sidii sheekada loo wado anaguna marba dhinaca u fiirinayo qof maanta oo dhan shaqeynaysa ana iska daalana hurdana u baahanahay ayay wixii ku tiri heblaayo ninkeeda intuu garaacay oo laftay qaatay jabiyay ayuu haddana subaxdii waxay u keentay beer iyo rooti kulul taasoo ay la jeedo dil laakiin asiga wuxuu ii daaray heesta Hodan Cabdiraxmaan saddexigu wallahi yaa kuma seexa waligay siran kugu dilaayay sawiyo jacaylkuba sidoo wabiga ku yahay ayaan kula simanay saabtiyo ishaartii raysiyay xalayba suroobi weydii taas markuu ii daaro aniga waxaan ogahay inuusan asigay dilaynin oo naftiisa iga jecel yahay waxay leedahay markay wiilkii waan jecelahay hooyadiisna maalinta ka dambayso caqabad xoog la ay ila iimaanaysaa waxaan rabaa inaad asxaabta ku xiran hanad inaad tala soo siisaan markay anigana taladan siiyay ayaan idin sheegi doonaa taladan siiyay waxay tahay ninkan horta wuxuu kugu dul qaatay adiga iyo walaalahaadaba inuu nolol qurux badan geliyo waxaan leeyahay dhibka yar ee hooyadiisa ay wado iskaga dul qaado waa inta Soomaaliyeed maalmaha kamida ay dhibka kula fahantaa insha Allah ilaahina ha kula garab galo dhibkaada asxaabteeda qaaliga hadii wax fariin aad soo diraysan waxaad ugu dhaafaysan numberkayga iyo gmail-kayga instagram-kaygana waa kana insha Allah waxaa idin leeyahay la socod wanaagsan asxaabteyda hadii aad igu cusub tahayna subscribe-ta